السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada oran jiray majaajilada maanta waxaa tartan ku jira laacibyo kala ah xasan sheekh maxamuud, xamse cabdi barre iyo fanaanka caanka ee qamar suugaani. isbarta xasan sheekh maxamuud waa madaxweynaha Soomaaliya, xamse cabdi barre waa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, qamar suugaani fanaan caan ah legend oo la wada yaqaano isaga barasho uma baahna. haddaba maanta koobku saddexdaan nin buu dhex yaala, walaan isla aragna halka ay ciyaarta ku dhameeyaan. idinkana reer social media haddaad tihiin waxaa laydinka rabaa keebaa kee ah inaad kala saartaan mida codeeya. madaxweynaha Soomaaliya oo lagu naynaasa xasan tuug. xasan waa ninka keliya intuu salaad jimca masaajidka istaagay isagoo ku fadwooday in tuugaan la qarinina tuug la dhaho oo la sheego. maxaa ka taqaanaan dee isaga ka bilaabeen xasan tuug. xasan wuxuu noqday laacibkii ugu horreeyey ee isagu isu fadwooda keligiisa intuu masaajidka istaagay isagu isku markhaati furay, magacna isu bixiyey, weliba Soomaaliya oo dhanna u sheegay inay ugu yeedhaan magaca. lajannimo ninkaa waa dhaafay soo maaha. ciidamadiisa ma la haysan karo. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya xamse cabdi barre macalinkan ma fadwoodo, waa ka xumahay, laakiin wuu riyoodaa. weligeena wax ka riyo xun ma arag. laacibkan wuxuu caan ku yahay inuu wuxuu habeenkii ku qarwo subaxii uu run u maleeyo. laakiin waxaa isweydiin leh, laacibkan markuu yaraa hooyo ma lahayn miyaa? waayo hooyadaabaa kuu sheegta markaa yar tahay waa qarowday, waxaas run maaha, iska ilow. macalinkaa cidima u sheegin. ninkaa waxaa laga qoray rayacaan ay ka mid tahay wuu baxsaday iyo wuu dhintay, wuu baxsaday wuu dhintay, lugaya gacmahana soo noolaaday iyo qaar kaloo aad u tiro badan. yaa waxyaabe ninkaan ciyaar marxuum ma loogu bixinin maaho. alfanaan qamar suugaani lejanka Bentley iyo bajaaj kala saari waayey. Bentley waxaa la yidhahaa baabuurta ugu qaalisan Yurub, bajaajna dee waa naqaanaa bajaaj. laacibkan hargeysa banooniga ka soo bilaabay, Nairobi iyo bajaaj ugu dhiibeen, xumaan intay ka qabaan qaar Soomaaliya. ilaa hadda siday ku dhacday yuu fahmi la'yahay, say ku dhacduu taagan yahay. aniga anoo Nairobi joog, anoo maxalla Jabuuti joogaa ogaay horta goormaa Nairobi imaaday, goormaa bajaaj la ii dhiibay, saansay ku dhacday. marka alfanaan qamar waxaan leeyahay saaxiib oo xamar ka warwareeg, xamar ha isku tegin. haddiiba Nairobi warkaan kaa raacay bisika xamar bartiina ogaato wax kaa soo raacayo. qaybtan waxaa la soo gaaray qaybtii eray bixinta. saddex eray oo cusub baan maanta idiin wadnaa. erayga ugu horreeya waxaa la yidhaahaa xasan sheekh maa noqday. xasan sheekh maa noqday oo macnihiisa loola jeedo aadaa la iigu mashquulay miya? macnihi aadaa la iigu mashquulay ujeedada qarinaysa xasan sheekh maa noqday. macni dib u fiiri, xasan sheekh waa ninka keliya ee social media page-ka furtaba xasan lagu dhegan yahay, kuleetiga lagu dhegan yahay. marka garay noqonaysaa xasan sheekh maa noqday in isaga lagu maleeyo. ya sidoo kale waxa waaye maxaa la xamsaan u ekaaday miya? xamsaan u ekaaday miya? xamse maa u ekaaday? xamse maa u ekaaday macnihi waxaa loola jeedaa horumarkayga maa sida xamse laga xun yahay. xamse waa ninka keliya dee aaminsan in dadkoo dhan horumarkiisa ka xun yihiin mugta. suu hadlayo markaa fiirso, isaga dacwo wuxuu qabaa horumarkayga ka xuntihiin camala. marka xamse maa u ekaaday waa socotaa iyadana inay iga gadmaysa iyo tijaabiye. xariifka u dambeeyaa soo haray qamar. isaga qamar wax kale ma dhihi kare, waa la iqamareeyey lehalda, waa la iqamareeyey. waa la iqamareeyey macnihi waxaa layla joogaa waa la itaagay ama waa la isixray. marka waa la iqamareeyey haddaa maqasho waa la isixray noqonaysaa. barnaamijkii maanta waa naga intaa akhyaaray. aragtidiina commentiga sheerka like-ta ku booba akhyaaray. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.